aad ka taqaanaa waddada ugu halista iyo weliba shilalka badan ee ku taalla gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waddooyinku waxay bilaan magaalooyinka waaweyn waxaana ay sabab u noqdaan in indhaha ay soo jiitaan markay yihiin kuwa nadaafadoodu aad u sarreyso. halkani waa waddada dheer ee tagta garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan ee cigaal ee magaalada Hargeysa. waa waddo ay adeegsadaan qof kasta oo ka soo dega garoonkani. waddadani ma laha askari jiifa oo xawaaraha gaadiidku ay ku socdaan waa mid aan qiyaas lahayn. qaar ka mida bulshada ku nool xaafadani Maxamuud Haybe oo la hadlay muuqbaahiyaha bulsho ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay halista waddadan iyo shilalka ka dhaca iyagoo qaarkood goobjoog u ahaa waxyeello ay gaadiid kala duwan ay ka geysteen waddadani. waddo wanaagsan baa ku taalla waana halka ugu badan ee shilalka ugu badan ka dhacaan 24 saacadood. xalay u dambeysay shil baa ka dhacay waxyaabo badan buu geystay. mar walba shilalka u badan baa ka dhaca. baabuur waxaad arkaysaa bilaabiriga oo ku tumayo iska taraaraya uguna shilka badan leh had iyo goorta shil badan uu ka dhaco. waxaanu maamulka cusub kula talinaynaa iyo gaanka ciidankaba in talaabo wanaagsan ay ka qaadaan dadka systemka xun u soconaya ee waddada isku xidhaysa madaarka iyo caasimadda ay ku soconayaan 180 waddo lagu socdo maaha oo qofku inuu 40 ku socdo. marka waxaan kula talinayaa dawladda in ay talaabo ka qaadaan. waxaan baaqan dirinaa waxa weeyaan waddadan waa waddo khatar badan waa waddada airport-ka tagta marka ilaa iyo airport-ka iyo ilaa iyo dalacadda lagu daadegayo muxuu ahaayeen gacanta speedka lagu socdaa waa 100 ama 120 waayo waddadu way agtaa macaan xitaa baabuurka ku xadayaba. marka intii waddada imika la sameeyay dhimashada ay waddadaasi qabtaa waa qayral macquul qof ma rumaysan karo. marka waxaanu leenahay waddadan waa lagu dhamaaday imika inta qof ee waddada ku dhimatay ee xaafadan degan ee aan deganayna ku dhamaatay de waa qayral sharci wad yaabisa. marka waxaanu aad uga codsanaynaa maayarka cusub Cabdikariin Axmed Mooge inuu waddadan u sameeyo askari jiifa oo waddadani dhul badanna uu ka banaayay la yara ballaariyo oo habeenkii markay baabuurtu isweydaaranayso dadku ay ka talaabayaan mararka qaar baad accident-ka ugu badani waxaas ka dhacaa. gaarigii xoog u socdo qofkii isla talow kiiga isla kadu marka accident-ka badan saas u dhacaya. marka waxaan doonaynaa waddadan waa lagu dhamaaday inaad aanu ka maayarka ka codsanayna inuu sida ugu dhaqsaa badan leh askari jiifa dhigo. haddii ay halkaa ka soo baxaan kaa joogsan maayaan waddada batankeeda anigoo ku badan soomaad garan waa qayral mas-uul dadkan bahalaa wata soomaad garan. midda labaad askari jiifa heeradi kama maaranta halkanu maalin walba dadku ku jiidha soomaad garan. dadka ku dhintay ciidaasay ka badan yihiin ama ku dhaawacma soo waxaad garantay maaha kii askari jiifaha loo sameeyaanu taaganay waddadan baabuurta waddooyinka kaloo ma askari jiifay leeyihin maxaa loogu diiday tan. goobaha ganacsi ee halkani ku yaalla waa kuwo u siman dhibaatada waddadani ay ku hayso oo aan lahayn askari jiifa. qaar ka mid ah dadka ku nool halkani waxay ii sheegeen in waddadani ay ku dhinteen in ka badan 50 qof tan iyo intii la dhisay iyadoo dad badanina ay dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaadheen halka khasaare maala oo kala duwan uu ka dhacay goobtani. intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintani waxaa isla goobtani ka dhacay shil kaasi oo dad badani ay ku dhaawacmeen hase yeeshee wax dhimasho ama keenin. aad baad mahadsantiin bulsho TV anigoo ku hadlaya howlwadeennada Citygate ama gacalle qof sidoo yaqaano. halkan waxaa ka dhacay shilal badan oo dhaawac leh oo dhimasho leh. annaga marka la eego annaga wax naga dhintay darawalkaygii gaadhiga noo wadi jiray oo uu gaadhi galay gaadhiga soo jiiday si qaldan u jiiday handbrake
dabeeto waxaa laga yaabaa inay dalcadda ka soo daayaan baabuur badan oo bilaabiriga ama si qaldan ay dalcadda xoog uga soo degaan marka halkan waxaa ka dhacay shilal aad u badan maanta ugu dambeysay waxaa dhacay gaadhi baana soo galay waad aragtaa kaabadahii aad buu burburiyey dad baa ku dhaawacmay qaar kaloo dhaawac culus la iyaguna way jireen marka ciidanka taraafigu aad buu mahadsan laakiin waxaan ugu baaqayaa in nalagala qabto wax wadadaasoo khatar badan keentay dhimasho badan iyo dhaawac badan shilalku weygii marka la isku soo duubo waxa laga yaabaa inuu ka dhacaan ugu yaraan 4 amba 5 shil oo waliba aad u xunxun marka waxaan ugu baaqayaa ciddii ka